waxa saaka kormeer aan ku tagnay xarunta dawladda hoose degmada Laascaanood halkaasoo dib habeen iyo dhis balaaran oo ka socday muddooyinkii u dambeeyayba halkaan waxaan kula kulnay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka degmada Cabdicasiis Xuseen Tarwale gudahanba dawladda hoose iyo waliba xarumaha dawladda hoose ay ku leedahay magaalada Laascaanood ayaa bilihii u dambeeyay ama bishii u dambeysay ay ka socdeen dib u dhis iyo dib habeen dib casriyeyn iyo qurxinba gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale oo la hadlayay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in ay dawladda hoose ay ku jiraan hawlihii diyaar garowga iida iyo waliba 10kii dambe ee bisha barakaysan ee Ramadaan wuxuu baaq u diray guud ahaanba bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood oo ugu baaqay inay u diyaar garoobaan iida barakaysan ee fooda nagu soo haystay ilaaliyana bilicda iyo waliba soo celinta bilicda magaalada Laascaanood maanta waxaan halkan ugu soo booqday warbaahinta dawladda xarunta dawladda hoose magaalada Laascaanood aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa warbaahinta dawladda si dhowla way noo shaqeeyaan kulli umadiina aad u shaqeynaysaa waxaan kula dardaaranayaa inaad shaqada halka ka sii laba laabtaan haddaan u soo noqdo dawladda hoose Laascaanood bishii barakaysan Ramadaan baan ku jirnaa shaqadii aan qaban jirnay ummadda adeegan u qaban jirnay waan sii laba laabnay iyadoo Ramadaana si fiican bay nagu socdaan xaruntii dawladda hoose oo aragtaan waa la dayactiray xafiisyo hadday tahay hadday baarkina tahay hadday gudaha iyo dibadda tahay maadaama 18 May aynu ka soo gudubnay si wacan baan u dayactirnay dadweynaha magaalada Laascaanood oo uga mahadnaqayaa 18 May si uga soo qayb galeen waxa kaloo farxad labaad noo ah in 18 May si nabadgelyo inay ku dhamaatay oo cidna wax maana ku noqon ina wax ilaahay lagu mahadnaqo dadweynahana waxaan leeyahay waxaad muujiseen biseelkiina aad bisishiin marka hadii alla idmo waxa nagu soo dhow ciidkii insha Allah wada magaaladu idaan baan u rajeynayaa saad u socotaan dhawaan waxa halkan laga hirgeliyay nololka cariyada ku shaqeeya oo iska kaashadeen wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo dawladda hoose Laascaanood dhulkii wada ifaya ganacsigii iyo Ramadaantii oo isku soo beegmeen waa meel aan doonay roomay u daay marka dadweynihii iyagoo security-goodii uu sugan yahay nalkii haysta bay hadeer ganacsanayaan Ramadaantii nagu soo beegantay waa wax ilaahay lagu mahadnaqo waxa iidiiba waxaan rajeynayaa inaan Ramadaanteeda ku gaarno inagoo caafimaad qabna inagoo nabadgelyo haysana inagoo gacmaha haysana waana bilicda magaalada dhamaanteed ka wada shaqeynaa kulli rugaha hadhay dawladda hoose haday tahay saylidaha haday tahay kantaroolada iyana dib u dhis habeen baan ku sameyn doonaa waxa noo balama guul iyo gobonimo iyo inuu wajiro shaqeyno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ugu baaqaya maadaama bilicdii aynu bilic soo celintii magaalada ka shaqeynayno in aad nagala qayb qaadataan qof walbi hortiisa gurigiisa iyo masbiye islaamiga inuu marmar dhigo baan u rajeynayaa si bilicdi magaaladu ay u soo baxdo nin walba dhowrka mitir muxuu ahaa de ka soo horjeeda isagii islaamiga u dhaxeeya duu marmar dhigo ama meheradiisa waxa iman doonta in magaalada wada qurux noqoto far quri fool ma dhaqdo dhamaantii waxa looga baahan yahay de dawladda hoose intaas soo istaasi ma dhigi karto muxuu ahaa marmar marka nin walba meheradaada si boorku kaaga yaraado waa inaad qurxisaa وبرخ عمر أحمد ورباهنت الدولة جمهورية الصومال Laascaanood